sidan aan hadda deganahay waxaan arkayaa inay noqon doonto tartan aad u adag. Harris waxay u haystaa 221 codka elektaroolka. Trump waxay u haystaa 219 codka elektaroolka. 7 gobol ayaa go'aamin doona doorashadaas. Haddiinu dib u eegno 2020, madaxweynaha Mareykanka ee waqtigaas, Donald J. Trump, waxa uu la tartamay madaxweynaha hadda ee Mareykanka, Joe Biden. Biden ayaa ku guuleystay doorashadaas isagoo ka helay 306 cod elektaroolka halka Trump uu helay 232 codka elektaroolka. 2016, Trump ayaa doorashadan kaga guuleystay Hillary Clinton 306 codka elektaroolka halka Clinton uu helay 223 cod elektaroolka. oo waxay u arkay gobollada swing sidoo kale. New Hampshire 2006 iyo New Hampshire 2020. Pennsylvania 2006 iyo Pennsylvania 2020. North Carolina 2006 iyo North Carolina 2020. Michigan 2006 iyo Michigan 2020. Wisconsin 2006 iyo Wisconsin 2020. Georgia 2006 iyo Georgia 2020. Arizona 2006 iyo Arizona 2020. Nevada 2006 iyo Nevada 2020.